السلام الله عليكم أصحابي ميل بدون joogtiin waa idin salaamay waxaan filayaa inaa caafimaad qabtaan maanta waxaa idin hayaa shukulaato Nutella oo guriga aan ku sameysana halkan waxaan ku haystaa caano booro 4 qaado ah kakao 4 qaado asne caano qasan oo hal bakeeri ah kakao noocan waaye oo sokorta lahayn sokor halkan oo shiidan aan ku haystaa hal bakeeri ah saliid hal bakeeri ah waxaan kaloo ku haystaa kafee yarka ah iyo carfiso ama vanilla saad bisa u taqaanin intaas oo alaab ah aan rabaa inaan isku soo dardar qaabka isku soo dardaraa in tusaya dabcan isla socod wanaagsan hadan waxaan adeynaa makiinadii cabitaanka dhinaceeda waxa ku soo shubtay bakeeriga caanaha ahaay waxa kale ku soo darsanayaa alaabti kale oo yareed sokorta shiidneed sokorta ina shiidida fiican adoo kuskuskeeda ku dhibee ani hadda waa soo shiid makiinad sisinta ku shiide oo ku soo gidine dabcan caano booriyo waa ka 4 qaado ahaay caano booraha iyo kakao isku cabir waaye kakao daarto ka sii badsan kartaa ani 4 qaado qiyaasi ah intaas ka badan madow mugdi oo falxumo iga dhigaya 4 qaado waa taas waxa kale ku darsanayaa vanilla ama carfisada dabcan daarto ka dhaafi kartaa hadaadan jecleen laakiin way ku fiican tahay caraf ay ka dhigeysaa kafeegaas ku darsanayaa oo kisar dabcan kafeega dhalada hadii ay haysatid qaado haafkeeda ku darsanay ama qaado hadii ay haysatidna looska asna waa lagu daraa looska caadiga ah dabiicigeena ah kafeega bedelkiisa da kafee haysatid loos ma u baahnid ma hooy marka intaas isku soo dabooleena waa soo shiideena dabcan markii xoogaa intaan shiidanto oo cabaari isdhaxgasho asliida qiyaas loogu daraa mar walba makiinada dhaqaaji si alaabta isu dhaxgasho geesaha ay waxba ay kaaga degdegin saliida waxa waaye mar walba kulama qiyaasa ugu shubtid kora ugu dareysa si fiican kulama ay kugu soo baxdo dabcan dadka mayonnaise-ka oo dabiiciga guryaha lagu sameysto kasaay ayaa fahmi karo saliida noocan loogu isticmaal mayonnaise-ka markii la shiiday asna qaybaha saliida qayb kor loogu shubaa ma markaas mayonnaise fiican noqonaa daal markuu shubto ka kala baqaa shukulaatadana waa sidoo kale ayadana saliida qayb ugu horeysa hadda ku shubay way ku shiidmay hadan qayb kale ku daraa saasa ku soo wadaa mar walba kis markaan ku shubo waxay ii noqonaysaa wax fiican laakiin hal mar hadaan ku wada daro alaabta ay kala boqaysaa meel jiri waa iga halaabe ana mar walba dhowr mar tijaabiyay oo mar walba sameeysta caruurta u sameeymo marka saana ku soo wada saliidiya marba qayb ku soo daraya aan ku shiidaya hadii aad rabto shukulaato aad u adag inay noqoto saliida waa ka sii badinay bakeeri iyo xoogaa ka dhigay adeeg zaid daartid laakiin saani hadda adeegna ma raba jinaacna ma raba dareero adi dhaxdhaxaada rabaa rooti canjeera lagu cunaa ilmaha isticmaalayo marka qaabkan bisaan rabaa qiyaastan halka bakeeri saliida ugu filan intaas ku soo shiidaya aan ku soo wadaya asxaabe fadlan di aan la joogteen oo ku maasantiin daawashadiina hadii aan ugu cusubtiin subscribe noo saara wixii ra'yi qabtiin ama wixii u baahantiin inaan idin soo sameeyaan commentiga fariin igu reeba insha Allah isla socod wanaagsan geedkeenina hadda waa gabagabo noo soo dhamaaday waa wax easy ah Nutella kullee meelaha lagu gado ama shukulaatooyin meelaha lagu gado ani wax badan aan ka tijaabiyay soo gatay midaan tuwaan waaye mid ku caraf tan guriga lagu sameeyo ama ku dhadhan ah wali ma arag way ka tay badan tahay waa ka alaab yar oo guriga ku taalo iska qarash macquul ah wayna ka macaan tahay waxa yeelay wax la hubo adiga gacanta ku sameysanaysid waaye ma ahan waxa supermarket ka soo gado oo sanadyaal yaala ama dukaan ka soo gaday wixii lagu sameeyay aadan ogeen marka tan waxa isku hubta mar walba sameysanay bankeega lagu cunaa mala waxa canjeelada rootiga wax alla wixii ciyaalka rabaan ama dadka weyn xitaa oo isticmaalay waa kor shubanaysa oo ku maasantiin daawashadiina asxaabi hadana saas noogu soo baxsaa u jeedin mana adka mana jilcana waa dareeraha noocaas kalarkiisana noocaas waaye kalar mugdi hadii aad rabtiin kakao u badsan kartiin kakao kulmaha si badiso qaamidu waxa uu noqonaa mugdi kafee oo tiq uu noqonaa calaasha madow u dhawaad ah waan idin salaama meel badunida ka joogtaan nabadee